asxaabta ku xiran bogga Rungood Media share iyo like iyo comment si beed kaas u kala kaco dhamaantiin mahadsanidin asxaabteena qaaliga fadlan booqda YouTube Rungood Media si aad heshiin wax badan oo xaga ah halkaas aan ku kaadino runtii mar walba wuxuu gaaraa kumanaan qof oo dhalinyaro ah aad ba qayb u share gareysa qaybna way ka aamustaa walaal kii aamus waxa leenahay walaal share ku dhafo like-na saar mahadsanid kun jeer iyo kow jeer aadna mahadsantay gudoomiye hore degmada Wadajir Axmed Daaci ayaa sheegay in arrinta Gululey aan laga heli doonin wuxuu sheegay maamulka Hirshabelle mas'uuliyiin ka tirsan oo waliba ah kuwa ugu sarsareeya inay lacag ilaalush ku bixiyay waayeen waliba wuxuu sheegay in arintaasu aan marnaba laga heli doonin gudoomiye Axmed Daaci ayaa si guud u dulmaray dhibaatooyinka taagan gobolka Shabeellaha Dhexe wuxuuna ka waramayaa deegaanka Xaaji Cali oo dhamaan ayaanahan ay dagaal ka socdo waxaan ku horeeynaa markuu ka hadlayo Gululey oo runtii xasaasi ah beedka Rungood Media wuxuu mar dhow wareysi la yeeshay wiil ku sugan deegaan Gululey oo ah dhalinyarada waxbarata kuwa ugu firfircoon wuxuu sheegay in ilaa haatan aan wali lahayn ragay dilay wuxuuna sheegay in baarid iska socdo uu yahay wuxuuna sheegay tigida Gululey in waaga ka cagjiida maadaama ay saaxiibyaalkoor halkaas lagu birbiray ilaa ana waaga qod ciidu aan iska weydiin gudoomiye Axmed Daaci nala dhageysta markuu ka hadlayay deegaanka Gululey wuxuuna yiri gudoomiyuhu oo deegaanadaas ka shaqeeyay ayaan ognahay inay laaluush ku bixiyaan inaan la sheegno raadkaas soo bixin laakiin waxaad ogaa doontiin inta waa arintan la isla dhimamayo dadku waa kala dabay dadkaas waa soo bixaan wuxuuna ku soo bixi doonaa mas'uuliyiinta Hirshabelle dad kamid oo ku soo bixi doona iyo dilay baad leedahay marka dadkaas intaas kadib wuxuu sheegay gudoomiyihii hore degmada ana siyaasi xogcadayo ka tirsan oo hadda kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed wuxuu sheegay in arrintaas aan rab laga daba heli doonin waxay niyad u dhisaysaa dhalinyarada deegaanka Gululey oo aan la hadalnay oo aad uga careysnay maadaama ay helin wax siyaasi ah amba xildhibaan ah arrintaas si cad uga wuxuu siyaasiyiinta wuxuu wiilka dhalinyarada ah beedka Rungood Media la hadlay wuxuu aad culus uga tuuray dusha xildhibaan Carab oo sheegay inuu aad uga gaabiyay xildhibaanku wuxuu damacsan yahay ma helno buu yiri balse aad uga gaabiyay gudoomiye Axmed Daaci wuxuu dhanka kala hadlayaa beelo walaalo oo ku dagaasan deegaanka Xaaji Cali mar walba wuxuuna sheegay arrintaas in loo midoobo sidii la xalin lahaa gudoomiye Axmed Daaci wuxuu yiri markaana ayaan uga xunahay laakiin dadka labada wiilasha isla dhashay halna waxa la raaciyaa halba waxa lagu aadiyaa waxba lagu aadiyaa Hirshabelle anaga maamul ayaa noo jooga madaxan ku leenahay oo lagu ogayaan qayladaan keenin hadda maalin kasto dhibkii dhacayo runta culeyskeeda ay leedahay waxaan taas leeyahay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta halan xilhaynba inay arrintaas u guntadaan asxaabta sharafta qaaliga halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna wareysiga ka kooban halkaas u gelino waxayna ka codsanaynaa mar walba beedka Rungood Media share iyo like iyo comment insiin fadlan booqto YouTube Rungood Media saad u heshiin wax badan oo halkaan soo gelino mar walba aad nala socotiin like iyo share iyo comment aan siisin saan niyada noo dhistiin oo mar walba ku dhiirana in mar walba idin soo gelin asxaabteena sharafta leh kun iyo kow jeer mahadsantiin assalaamu calaykum warahmatullahi